geeri nagu timi adeerkay muse cabdulaahi. allah u naxariisto, qabriga ilaahay ha u nuuriyo. oday aad igu qaali ahaa adeerkay ah, allah u naxariisto, waa dhintay. waxaa ilaah uga baryaa jannatul firdowsi inuu ilaahay ka waraabiyo. ehladii qaraabadii familkii dhammaanteen buu naga wada tegayna waxaan leeyahay waa xanuun nagu soo kordhay, waa murugo nagu soo kordhay, laakiin insha allah gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo dhammaanteenba. qalbiyada ilaahay noo qaboojiyo, dhammaanteen buu naga wada maqan yahay. idinkana waxaan jeclahay inaad usoo duceysaan qabrigana ilaahay u waasiciyo insha allah. intaas waxaan ahayn idinkama aan maqnayn labadaas shay, xanuunkii iyo macnaha geerida nagu timi. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. meel kasta joogteen aad baa idin salaamaya. waa aniga walaalkiin sanka kaaga daawanaysaa waa banaan television. waa maalin kaloo qurux badan. ayaantan horta waxaa idinka yara maqnaa, waxay tahay xaydis igu soo yara kordhay. dadka qaar ay ugu dhaheen familka qaybihiisa kala duwan, dee qof bukow waxaa lahaa boqol kuu talisay soo maaha. qof wuxuu dhahay waa hergeb kusoo dhawow hergebka, qof wuxuu dhahay waa kaduudiyo kusoo dhawow, qof wuxuu dhahay waa hawada a kala bedelatay maxaa la lahaa laba biyood. qofba waxbuu ii sheegay. marka alxamdulilah hadda maanta aad baa u caafimaad qabaa. ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta qandhadii waa ii daysay, inkastoo labadii maalmood lasoo dhaafay adiga saddexda maalmood lasoo dhaafay aan laga sheekeyn karin qandhadii soo martay. furuurteeda hadii qofkii zoom soo dhaw arki karaa furuurtu ay gooday. laakiin alxamdulilah ma xanuunsada, waa shaydaan, bini aadana u nahay. dembi dhaaf ilaahay nooga dhigay inta aan xanuunsanayna. midda labaad ee aan usoo geli waayey iyadana waxay ahayd geeri nagu timi adeerkay muse cabdulaahi. allah u naxariisto, qabriga ilaahay ha u nuuriyo. oday aad igu qaali ahaa adeerkay ah, allah u naxariisto, waa dhintay. waxaa ilaah uga baryaa jannatul firdowsi inuu ilaahay ka waraabiyo. ehladii qaraabadii familkii dhammaanteen buu naga wada tegayna waxaan leeyahay waa xanuun nagu soo kordhay, waa murugo nagu soo kordhay, laakiin insha allah gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo dhammaanteenba. qalbiyada ilaahay noo qaboojiyo, dhammaanteen buu naga wada maqan yahay. idinkana waxaan jeclahay inaad usoo duceysaan qabrigana ilaahay u waasiciyo insha allah. intaas waxaan ahayn idinkama aan maqnayn labadaas shay, xanuunkii iyo macnaha geerida nagu timi. alxamdulilah rabbilcaalamiin. qof walba horta soomaali, qof walba macnaha adduunka dushiisa dul saaran, madow iyo cadaanba, qof walba adduunka dushiisa dul saaran. qaarna waa la xanuunsadaa, qaar waa la dhintaa, qaar waa dhashaan, qaar waa guursadaan, qaarba waxbaa kusoo kordha soo maaha. alxamdulilah dhammaanteenba sidaa wada dhannahayba dhammaanteenba waxay iga barateen waxay ahaayeen farxad iyo qosol iyo sheeko iyo fiidiyoyaal fara badan aa idiin soo gudbiyo, asxaab fara badan aa idiin soo fariisiyo kala duwan nooc kastay yihiinba. laga bilaabo adiga maanta ilaa iyo beri dambe insha allah fiidiyoyaal kaloo qurux badan. magaalada hal fiideo basaan kasoo suubiya umaleyna saa u imaaday. waxaan jeclahay maalinba xaafad gooni ah inaan fiideo idinka soo suubiyo. magaalada see u ballaaratay iyo see u ekaatay iyo see u qurux badnaatay inaan idinla wadaago hadduu ilaa yiraahdo. dad fara badanoo igu jirana waxay dhaheen maadaama reer Kismaayo aan nahay, qof walba wuxuu sheegtay xaafadaas deganahay iisoo duub, xaafadaas deganahay iisoo duub, xaafadaas deganahay. waxaa ka bilaabi doonaa insha allah Siinay haddaa deganahay aniga, weli anay Siinay ma deganay, Kuuba xaafadda aad deganahay ka bilaabi doonaa. saasaa u bixi doonaa marka ilaa aan idinka soo tuso guriga aan ku dhashay, xaafadda aan ku dhashay, qolka aan ku dhashay idin tusi doonaa haddii ilaa yiraahdo. marka videogan ma jeclaa idin ku dheereeyo, maadaama dee muhiimadda ahayd inaan laba qodob idin sheego. labada qodob ma idin soo gudbiyo haddii ilaa yiraahdo. videogan video xigta kulmi doono. wax idin kastagaa waxay tahay fi amaan illah.